walaalahayga muslimiinta ah waxaan rabaa aanis kalihiisa si aan kali ku heli lahay walaalahayga muslimka ah inay garab qabtaan rabaa walaalahayga muslimiinta ah walaalahay oo garab qabta isbitaalkii kama bixi karo oo mashiintaana igu xiran ilmo waa ii joogaan oo indhow ma arkin walaalahayga muslimiinta ah السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داود يا الجدي مكسا توكتان نبتقليد بين حريسي سمد جارك يا تجودي تبجود كنها هذين سود وهذا أنس يوسف عبد الله واشنشر أجونا أنس يوسف عبد الله شن سنة شراء وأنا أجون شن بلاد هي مالمو أيه وحيا لا إسبيتال كويا لا مقالة نيروبي عاصمة ضلك كينيا كومو كتير أنتي بدنيد شنطة بلادية سعيد كا كومادو مرجلية يردور سومية مرة وقصوا بحيا كعميه مركي كده لين داوين كي لقسيني حديد اللي وياك صار لقسيا وكدلوا له أما يكجحرن تاو داود لقسيا كهذا سوق مكاتشي ألعاب قاضي ساكو حرن أما بيب قاضي يلو طلع قلبي أكو حرن عنتوين كانوا سيدو كله كلا أكو حرن hooyadii baa la tabaalaysan oo la joogtay intaas oo habeen oo halkan u jiifay dhibaabo fara badan baa haysta labadii kaliyood baa dhintay qarashna ma haystaan kaliya la'aana wuu joogaa cunugeedu ama wiilkeedu isbitaalka lagu qalay ee hadda aan kala hadlaynay soo booqanayna qarash fara badan baa lagaga yeeshaa inaan idin la wadaago oo muuqaal idin la wadaagno oo Soomaalida gacmaha furayd ee muhaniinteeda la wadaagno baan jeclaysanay arrinta wixii anigu aan ka tagay waliba dareen leh waxay nooga waramaysaa hooyadii wiilka oo halka joogta waxaan keenay bishii labaad 5 bilood aan joogaa meesha marka kaliyaha waa ku daheen dhagaxyaha wiilka kaliyaha waa ku daheen sababtii ugu daheen waxa kamid ahayd awoodaan ugu baxan way awood Ilaahay xaqiisa ay jirtaa markii hore meeshaan markiin keenay oo dhagaxyada laga soo saaray oo muddo joog 3 bilood aan joogay waxa liigu dhahay kaliyaha handar waa dhinteen kaliyaha wiilku waa dhinteen kaliyaha la ajligood handara wiilki madax bareesha ku dhuftay handara madaxa laga freeshin hadda birahan banaanka uu lama bixi karo markiin banaanka sii geynaa bareeshaada yaa ku dhufan kaliyaha waa leh marka waxaan biyahan baa ku xiran 3 biloodan ICU ku jiraan anigoo ICU intaas ku jiro oo 3 waxa liiga rabaa lacagta liiga rabana waxa waaye 3 milyan iyo 500 ya ka raba waxa iga raba isbitaalka qarashka lagu yeeshay wiilka lagu qalay qarashka isbitaalka lagu qalay ya hadda liigu leeyahay 3 milyan iyo 500 lacagta ay hooyadu sheegtay Kenyan ahaan bay inoogu sheegtay laakiin dollarka dadku wada garanayaan haddaan dollar ka dhigo ama dollar ku sheego waa 35,000 dollar waa qarashaadka lagu leeyahay ee isbitaalku uu ku yeeshay ee halkan u jiiftay isna uu xanuunsanayo de komaas iskaga jira markaa ka soo baxaya iyana way la seexataa halkan la joogtaa cid kaana sabeena ma hesho la seexata cid habeena kaana soo la seexato oo 5 bilood meeshaan qaf iga nisaataa mala 5 bilood ka soo hooyanaysan 5 bilood aan meesha Soomaaliya ka codsanaysa dad badan oo Soomaali oo muxsiniin oo khayraadka jecel baa ku daawanaya fara badan oo meel kala gedisan ama wadamo kala fog jooga waxa ka codsan lahayd walaalay muslimiintu waxaan ka codsanaa qarashka liigu leeyahay oo intaas dhan oo lacagtaas 3 milyan iyo 500 ah inay iga bixiyaan wiilkan oo Anas Yusuf oo kaliyihiin awood way waxaan rabaa inay walaalayaalkay ay garab istaagaan oo wixii uu dhadi karaan horta ducada ugu horeynta ay ugu soo duceeyaan hooyooyin hal iska hawo iska amri ilaahay dul qaado dad badan oo Soomaaliyeed daawadayaal gidigii Mexico joogtaan muuqaalkan inuu dareen leeyahay waliba mid naxneed wataan huba
walaalahayga muslimiinta ah inay aani sidii oo igu kaalmayn lahaayeen walaalahayga muslimiinta inay garab qabtaanaan rabaa allihii boqorkaay muslin meelay joogaan soomaali weyn horta ugu horeynta waxaan rabaa faataxada ilaahayga boqorkahay inay horta iisoo baryaan oo ay faataxada igu soo kaalmeeyaan sidiis wiilkan keliyo ku heli lahay ilaaha wax hagaajiyo ayaka walaalahay muslimiintana ay garab istaagaan oo ay kaalmeeyaan rabaa walaalahayga muslimiinta meel ay joogaanba inta muuqaalkan laga arkayo intay iiga jeedaan muslin meeshiis joogo walaalahayga muslimiinta wiilkan yar awood ilaaha iskale awoodaan uwey 5 biloodaan isbitaal ku jira walaalahayga muslimiinta ah waxaan rabaa aanis keliyihiisa si aan keli ku heli lahay walaalahayga muslinka ah inay garab qabtaan rabaa walaalahayga muslimiinta walaalahay oo garab qabta isbitaalkii kama bixi karo oo mashiintaana ay ugu xiran ilmo waa ii joogaan oo indhow ma arkin walaalahayga muslimiinta waxaan rabaa inay si garab qabatiin ilaahayga kaligiisa wax caawiyo muslimiintana waa is garab qabtaan walaalahayga muslimiinta waxaan rabaa inay garab qabtaan anug yar oo keliyiis waa dhinteen la dhahay walaalahay waa dhib badan yihiin waxa way geeri haddaa yimaad ilaahayga boqorka ah ku keene haddaas dhib imaadana ilaaha keene alxamdulilah wixii nagu dhacaba ilaahay keligiisa mahad iskale laakiin walaalayaal qof nool haddii lagu dhaha keliyihiisa eber waay waxaa way murugo weyn oo food saartay alxamdulilah ilaaha mahad iskale walaalahayga muslinka ah waxaan rabaa sidaan aniga murug yahays inay ila soo murgoodaan oo aanay sidaas keli ku heli lahay walaalayaalkay ay igu caawiyaanan rabaa walaalayaalkay hay caawiyeen ilaa wax kaalmeeya muslinkan waa isgarab qabtaa walaalahay ha i kaalmeeyeen saaxiibayaal goobtan joognaa dareenka iyo ilmada wadata muuqaalkan rabno inaan idinla wadaagna ama daawanaysaan baa wuxuu wataa dareenka hooyadan Soomaaliyeed laba arrimood bay u baahan tahay oo kala horeeya ama isku dub yaala marka hore waxay u baahan tahay horta gurmad bay u baahan tahay iyo garabsiin mid ducaa iyo mid qarash labada way u baahan tahay ilmaha yar ee agoonka halka yaala ee sanduuqada aqoon ama af aqoon way ka keentay meel miyi ah oo garab kale oo inaga aan ahayn aan haysan hantii ay meesha moogtay ku daawaysan aysan haysan wixii hore markii hore badii haysatay uu iska raacay moogtay qalinkii hore iyo hawlihii hore lacagta $35,000 ee isbitaalka laga leeyahay horta in la bixiyo inaga la inaga rabaa boqolaal ku baynu bixin karaa xagga wax bixinta ilaahay baa inaga dhigay geesiin aad muhaniin u ah $35,000 horta inaan 24 saac gudahood horta bixino wala inaga rabaa sidii kaliya loogu heli lahaana ama mid iiba loo helo ama mid qoyska uu ka dhashay looga bedelay sidii loogu qaban lahaana inaga la inaga rabaa labada qodob oo mid ka weyn yahay baa horta la inaga rabaa waxaan ku codsanayaa walaalayaal meexta joogtaan rabbi haydan barakeeyo ilaahay dambigiina ha dhaafo cumrigiina ha dheereeyo meexta joogtaan waxba hadalka badin maaye telefoon ma leedahay mama telefoon wale ya wale ha telefoonka dadku sheeg 07 01 266 865 intaas waa la markay ku soo celin mara 07 01 266 865
imbeesa muxuu leeyahay qaybta adeega lacagta lagu diro imbeesa waa leey magacaaga iyo way isleeyihiin si ku diiwaangashanaya soo maaha haa cabdi cali sowa telefoonka shaashada ku qoran dee furihii baan ku darnay intaa ay hooyadu sheegtay kaa kale ku qornay anaa sita wixii aad usoo dirsan kartaan telefoonkeeda kusoo diri kartaan qaybta adeegii lacagta lagu shubaad kusoo shubi kartaan qofkii ay uga dhib yaraato inuu kayga kusoo dirina intaad kusoo dirtid baad kayga kusoo diri kartaan u keeni karaa meeshaanu iskala hadlayna waa magaalada Nairobi isbitaal ku yaala ee caasimadda dalka Kenya muuqaalka waxaa duubaya Ilbuur ama Cabdixakiin Ilbuur anigoo reebaan ila hadlayay waxaa idin rajaynayaa jawaab fiican oo waafiya oo tan ka farxad duwan haddii Ilaahay ina gaarsiiyo السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.